السلام عليكم dadku waxa dilaya duurjoogtana baabi'inaya waa cunto laga dabageeyo iyadoo cuntadii hore aan la dheefshiidin mid kamid ah qayrta ku xiran kanaalka garwaaqsi ayaa wuxuu iga codsaday inaan soo sameeyo mowduuc aan uga hadlayo cuntadii caqabadaha lagala kulmayo cuntada insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan kadib inuu wax badan ku ogaan doono macluumaadka quseeya cuntadii caqabadaha lagala kulmayo ku soo dhawaada mowduuceena maanta إلهي سبحانه وتعالى وحوليب وحو أدجي نظام لنع وليب أو كمذا نلش بني آدمك وحو إلهي أدجي نظام يقابل قتلق لي هدي دادكو إيقاتا نظام كاس أدوني أقرب بيليبانيان هدي سايكتغانو إسكان لتران أدوني أقرب بقصاريان tusaale ahaan haddaanu soo qaato cuntada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa ku yidhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu cuna oo caba laakiin ha israafina maxaa loola jeedaa israafku micnihiisu waa xadgudubka cuna oo caba laakiin ha ku xadgudbina waxaad cunaysaan iyo waxaad cabaysaanba yacni ha dhaafsiinina xadka loogu talagalay وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ما أهن آيات دميسترا وآيات كلا بركيدا قار كمد علماء الطب بحيليهن أما علماء كنت قصص عافماتك آيات دان وحو إلهي كسو أرورية أما كسو كلميي ضمان أسلك علمك عافماتك حتى لو قلت لقلي وحل عنا أيو وحل عباي وحنوشيق رسولك صلى الله عليه وسلم وحنيري ما ملا آدمي وعاء شر من بطني إن آدم مبوحي ويل وكشر بدن إنو بوحي علوشيسا علوش هذا إن بوحي سوا شر بني آدم كوحا كفل اللقمضو أو نبركي سكوتوسيو يعني قاجدو إسكاقسارو هدي لقما مارمان إنو قط إنو وحكو درسدو علوشيسا هو قيبي سدح قيبون فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه qayb ha geliyo cunto qaybna ha geliyo biyo qaybna ha u daayo inuu ku neefsado oo ha firaaqay waxba yuusan gelinin dadku waxay yaqaanaan gaajadu dhib bay keentaa laakiin waxa nagu cusub dhereg baa dhib keenta markaanu soo laabana caqabadaha iyo dhibaatooyinka lagala kulmayo cuntada oo la badsado oo si xad dhaaf loo cuno dhibaatooyinka kuma eka kaliya cudur jirkaaga ku dhaca xitaa waxa ay saameynayaan nafsadaada waxyaabaha laga dhaxlo cuntada oo la badsado waxa kamid ah in uu kugu dhaco qalbi adeeg oo uu qalbigaaga engigo oo uu xaq aqbali waayo fahankaaga inuu lumo oo aad waxba fahmaynin naftu inay ka adkaato oo aad nafta u jabto oo ay salka dhulka kugu dhufato kadibna ay ka badiso nafta inuu kugu dhaco caajiz iyo fircooni la'aan oo aad waxba qaban karin oo aad iska doonaysid maanta oo dhan inaad iska huridid oo iska jiiftid in uu kugu dhaco cudurka inta badan dadku ku dhaca waana cayilka ama buurnida inaad buurato cayilku waa waxa facaaga ka reebayo adigoo cayilan hadii xabadii ay bilaabato uma ordi kartid sida uu facaaga u ordo kamana boodi kartid halka uu facaaga ka boodo runtii waxa facaaga ka reebo waa cudur una baahan in laga hortago marka lagu leeyahay cuntada yareyso micnaheedu ma ahan baahi ama gaajo isku dil micnaheedu ma ahan waxbaha cunin ee waxa laga badaa dhexaad ka dhigo waxa aad cunayso iyo waxa aad cawaysaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrul umuri awsatuha arin waxa u qeyr badan mid dhexaadka ah yaani waxa aad cunayso iyo waxa aad cawaysaba dhexaad ka dhigo wixii aad doonaysaan inaan ka hadlo iigu reeb dhanka iyo commentiga insha Allah waxaan ka kara ayaan ka soo sheegayaa biidhnillah wassalaamu calaykum